كونكان آدميga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhagayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan xafaayada coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa إذا سؤال علوس بالليسوي دي وحين تاي كلمان محسبي با محل دوم با محول الدوم با مع الرادس با مع سر الأبور با كلمان محيك ربان بالليل يا وحدة يهان هاي وحدة ربانا ربنا كلام مهيال ولا ميا وحان هيدا بسلاح الله بودا ونمكيك اللي جرن جيرو صديقي كوبان لانكيس لهذا اللي وارنا إلهي كآفي ولالو أريا منات خليقا إسلا ورنتو حادث بهذا وركتش وابا سؤاشان ليدي سوي دي كلمان قرماها كيفكو واكحاران حبا قوشتا اللي أبال كيدا قيان هداي قورع قوتهاي هداي قولكو تاكتو قوع كاحيوسان هذا قلب سليق قرو ورنمو كلمانك أقوين باقين هيا وهناك دحتاقين هاي دولة دي قرمدي ميوري دولة دي امام القوليدين aqalka sare ee golaha shacabka gudoomiyaha bangiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa iyo maamul gobolka banaadir iyo ku-xigeenadiisa aryaadaha kalamaanka ugu weyn haddii alla na gaarsiiyo bishaan 26 dhacaa wuxuuna ka dhacaa caleemasaarka madaxweynaha puntland madaxweyne farmaajo waa ka qudbay doonaa madaxweynihii hore ee xasan shiikh ahayna waa ka qudbay doonaa madaxweynihii kasii horeeye sheekh shariif ahayna waa ka qudbay doonyaa cabdiraxmaan cabdishakuur naftirkiisa waa ka qudbay doonyaa ha ka tegin axmed madoobe iyo xaafna waa ka qudbay doonaan armahaas xaa kalamaan yaaley intaasoo mas-uuliyiin hadday mikrafoon wadaagaan oo ka hadlaan puntland waa siday u sheegatay hooyada federaalka inay taana caddaanayso warnimiyo aan fara-iinteegan madawiine lafta garaagna ka qudbay doona ma arne abdulle yaa waariba maasaa juuq ka dhihi raba warnimayow xafladaas ciidamada amnigeeda sugi doona dhinacay ka imaanayaan ammaanka puntland janal asad baa u jooga asadna maxaas ahay libaax miya nimayo hore waxaa loo yidhi daruur la'aan roob ma yimaado daweyn la'aan xaashima duushaa la dhahay arnaga tag maahmahyada heer xamarka waa qaladeen baraf waa dhalaala barafna daaba ma leh ay ahaada waraadha gaalka ayaaroos cajiibaha ka dhacay xafladii aroos ka socota wiilkii ooyin buu iskaga wareeg ma cabsanaaye war miyaanad maqal indhihiisu yaa isu soo ilmeeyeen war farxadu waa naxdin baa la yidhi war reer galgacyad waa xalalaadkaayana maxaa dhacay wiilka markii la weydiiyey sababta wuxuu sheegay farxad inuu isla celin waayey yaa farxadu qosolay leedahay mayda ooyin la mugga war maya waa alxubu alxawaayil xalaawatu lows weeyaan adeer marka waxaan dhihi lahay reer mudugii ooyaan awal hore la yaabaye inan tiri ma aragteen madaxweynahoo idil anigaa jeclaado aawadaa farmaajo ama weysdeldelaya ama weyla aqalgel haddiid meeshaas cumri ilaahay ku siiye geel dhalaayna waad arkaysaa haa la yidhi reer mudugoo jacayl la ooyey nabadaasoo socota war markii arooska la gaara meesha lasgaraaca waa afgoy warnimiya warasiin haaya ilaa iyoonay lehdankii hatilikuroguna gudoomiye baarlamaan aan lahayni aada reewuneed madawiine ma dhalaaso ka aari reed maysiin lahaa gudoomiye kiidan baarlamaanka miday mursal hadali reer baydhawjinaay odayaasheenan khudbeey may erey abuuroodow mansuur inoo la hadeey ka qasban naari haddii la hadiyo waaye ma erey abuuroodow mansuur aan iyoonay lafta gareemba kursiga binaya naari haddana wariya magan halalaase walaa afka batihaayana walaasma leh anu waxaan aad u jeclaan lahaa warkiisa in la diido bal kursiga inuu ka kacayo in kale hal ogaade warnimada kursi laga kaco cabdifitaax geesay baa ku khasaaray gudoomiyaha baarlamaankuna warkaan dadku ku maslaxaynayaaye kursi ka kicid ku degdegi ma kumana dhici karo reebo iima reebo weligeerooda kamaroori warnimaya waxariga rogow geesaya xilkiisa ku waaye heesanno waa ku baxay qof saddexaadaa loo baahaya oo kursigiisa ku waaya hilaa lagu
waayaan diningilay warya meegaan dhimatay fuustiyoona harar koran fiiriyeen war sanadkan meeqaa dhimatay lama yidhaahdee meeqaa xil heshay baa la yidhaah wareedhacdacdaa un baad haysaane waxaa la yidhi siyaasigay dharaar xilka u dhiibatee dhabarkiyo garbaha ka dharbaaxdaye hogaanshow talada dharaandhiri ku tidhi dhinac kale hadduu dhaanka u rarae dhaartiyo wallihii dhegbajala u siin miyaan dhagar ka gelin war dawankaganw meegasin arigaan iyadoo lisdheeriyaayo waana xaliintoon ilahankogobadaana warnimada waxaa la yaabay adduunka mas-uul been sheegaya warkiisa wax ka qaab daran lama arko wasiirka duulista hawada Omar ninka la leeyahay wuxuu yidhi nin looga shakiyo waxyaabaha qarxa inuu wado ayaan ku qabanay aeroboorka markii la baarina waa laga waayey haddana isla markiiba wuxuu yidhi baarisaa ku socota wixii ka soo baxana dadkan la wadaagaynaa marka labada eray kee runa aduu midka runtaa qaadee anuu waxaan la yaabanahay duulista hawada maxaa dhulka ka yaalla war adeer annaga hawada Somaliland muqdisho lagama maamulayo horta dheerayku intoosan kaa gubanowsan kaa oomaarin biyaha lagu shubaa muga ninka odagaa warka biyaha isaga daro hana nooga daro warnimada shabeellada dhexe darawaleentii gaadiidka xamuulkaa waday iyo ganacsatadii ayaa la isla xiray waxaana lagu haystaa shabaab baa canshuur siiseen marka waxaan la yaabanahay shabaabka mas-uuliyiintuba ay ka soo mari weydeen waddada ay diyaaraha uga soo raacayaan jowhar maxaa dadka loogu caburinayaa shabaab ma baryaan canshuurteeda waa xoogay ku qaataan warnimiya war isla moogdina jira madawiine ku-heegaanka hirshabeelle ali guudlaawe hamiin dhawaaytay dagaal eer barafka dhiyawla ku waraysadii maylaaray saala madaxweyne ku xigeen adaa meeshii mas-uulka ah maxaa dadkaas loo dhexdhexaadi waaya leeri intiisari war meesha shabaab baa haysasaan ku tagi laheen baa adag yaari yamaa haddii shabaab jooga lagama raacdeeyo shacabku hal shilin iskama siiyeene war meel ninkii ku xoog badan baa dawlad ka ah warnimada gudoomiyaha gobolka injineer Iriso waxa uu yiraahdaa xilli warsamo jooda guri uu sharci darrax ka dhistay ayaan burburinay oo waa bari ku yaala war waa bari waxaa la yidhi guri fisqi lagu samayn jiray ayaa dab la qabatay aryaadaha ciidankii xoogga dalka bangiyada akoonna looga furayaa la yidhi muga sirtii ciidanka suuqay iska taalla heerti maahinoo taasu waraadaha gabdho baar wax iyo balaag sii jooga waxaa la yidhi kalamaanay dhegta ku hayaan qofkii hadasho ka mida or naga tagay waa kusoo duubana war ma rabne aryaadaha dhakhtar suuriya uga soo tegay dagaal xamar baabuurkiisa qarax loogu xiraa asoo la kacay war annagu waxaan u baahanaha federaalka Switzerland gobolba sanad ayuu madaxweynaha qabtaa baa la yidhi 10kii sano la soo dhaafay 10 madaxweynaha soo martay annaga la qabiilba 4 sano qabtaa maxaad la yaabaysaa alowya aniga hal bil kaliya madaxweyne iga dhigatan ka dhacda hal la yaab hora waxaa loo yiri digsi dawoonkiiska maweyna damacleen haleeyi war adeer maxaad Switzerland looga sheegaysaa 10 sano mucaarad ahaa Faysal Al-Waraabe war Ismaaciil Umar Geeliba 20 sano madaxweyne wadaa ciidamada Mareykanka Soomaaliya loo soo wadaa baa leeyahay ya Suuriya ka baxeen xaynaga soo jiraayaan ununka war muwaawinigeediyana war safiirkaaga idinka guuray anagu loo soo guuray dal Soomaaliland ilaahay ka cabsada wadankiina loo shaqeey roob haydan ku dee waxba ka dhiman nadaafadaada ilaa aad isticmaasho oomada iyo saabuunta B29 xubintii kalamaan ay taasi ahayd barnaamijkeena kulanka keenan inay qayb ka tahay haweeney sheegatay dhawaantan inay tahay qofka dadka adduunka ku nool ugu facaweyn ayaa geeriyootay waxay ku geeriyootay da'da 128 cisho 128 sano ayaan jiraa bay tiri baasaboorkeedana sidaas ayaa ku qornaa waxaa magaceeda la yiraahdaa haweeneydan Nanu Shanofa dhulka buurleeda ruushka ayuu ku nooleed shalay nin loo aqoonsanaa inuu yahay ninka adduunka ugu da'da weyn ayaa ku geeriyay wadanka Japan isagana 113 sano ayuu jiray ninkaas buugga lagu qoran dhacdooyinka adduunka ayaa ninka ku qornaa laakiin haddii dhinaca kale loo fiiriyo haweeneydan ayaa ka weynaanaysa oo 128 sano ayay ku geeriyootay hay'ad qaabilsan dhinaca hawada ee wadamada reer Yurubna waxa ay leedahay oo magaceeda loo soo gaabiyo Arin Group waxay ku doodayaan inay wadaan tijaabo ah in dayaxa dushiisa lagu noolaan karo 2025 marka la gaarina waxay leeyihiin waxaaba wadnaaba dadka Yurub jooga inaan inta rafno aan dayaxa dushiisa geeyno halkaasna ay ku noolaadaan waa sheeko kale oo aad u xiiso badan gabagabada barnaamijkan joognaa saaxiibada igala qayb qaatay ayaanu mahadnaqayaa tabin diyaarin farsamo Axmed ayaa barnaamijka farsameynayay ana geeri diiday hees la yiraahdo oo ay ku luuqayso Faadima Axmed Dembil ayaan kaga tagayaa
Kuna na